maayir ku-xigeenka magaalada Balligubadle ayaa waxa uu ciidamada booliska Soomaaliland ku eedeeyay fal shalay ay kula kaceen bartamaha magaalada Hargeysa isagoo oo sheegay in taliyaha qaybta traafiga booliska ee magaalada Hargeysa Faysal Xiis oo wata 4 askari oo baastoolad ku qabtay isla markaasna lagu handaday halkaasna lagu xidhay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa maayir ku-xigeenka magaalada Balligubadle oo arintaasi marka hore ka hadlaya waxa uu yiri waxa ay ku dhacay inqilaab xoogan aniga oo safar shaqo ku jooga magaalada Hargeysa waxa aan 9kii subaxnimo la kulmay ninka leeyahay gaashaanle Faysal Xiis oo mobilka igala soo hadlay isaga iyo darawalkiisa markii aan midna waxaan ugu yimid gaarigayga iyagoo hareeraha ka taagan isla markiina waxa ay ku soo booday 3 askari oo hubeysan waana qoryaana la igu qabtay waana la igu gaxeeyay markii aan ku yiri wax sharci ah oo ay igu gaxaysan ma haysan waxa la xeeraalinta ayaanu qoraal iyo dhugmati kaaga sidnaa waxaanay noqotay wax la waayo been ka sheegid xeeraalinta isla markii intaas ay dhacday saldhigga leegeena oo biiga la igu qoray waxaan ku yiri waar xasaanad baan leeyahay oo maayir ku-xigeen baanahay maamulkii meesha hal igu yeero waxa la igu yiri ma naqaana anagu maayire gal marhoon cable TV weydiiyay haba yaraatee wax dambiyo oo lagu soo eedeeyo iyo in ay jirto xasaanada uu lahaa ee golaha deegaanka ee magaalada Balligubadle in boolisku ay tixgeliyeen waxa uu yidhi sifo sharci ah leeyma soo marin waxa la igu handaday oo la igu qabtay qoriyo burcadnimo waxaana ka dambeeyay Faysal Xiis oo gaashaan la ayaa hawsha watay waxa leebeeya Maxamed Case oo saldhigga dhaxaysta gabagabadii marhoon cable TV uu la hadlayay waxa uu sheegay maayir ku-xigeenka magaalada Balligubadle in uu codsanayo isla markaasna hoggaanka sare booliska Soomaaliland ku codsanayo in talaabadaasi lagu la kacay sharciga la soo waafajiyo jananka waxaan ka codsanayaa arrinka inuu wax ka qabto oo uu waliba si degdeg ah wax uga qabto hadduu wax ka qaban waayana sifaha sharciga iyo furmaan u maraya dhanka kalena marhoon cable TV uu la xidhiidhay ciidamada booliska ee maayir ku-xigeenka magaalada Balligubadle oo eedahan u jeediyay ayaa gabi ahaanba ay noo suurtagal weyday inaan la kulanno kadib markii ay naga qaban waayeen mobiladooda gacanta aadan cabdi ciidle hoon cable TV Hargeysa.